السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرر سوماليا يوم مدى إسلام كي وين السلام يا ميل كستو أشوكتان با waxaan doonayaa inaan yar ka hadlo. waxaan arkay inantii farxiya fiska oo cabanaysa oo la gurigaygii baa loo dhacay. dad baa gurigayga dhibaatayn badan igu hayay. dad kuray baa u soo daadata. anigu maan moodayn in Somaliland dhibaatadaasi iga gaadhayso. waxaan ahay dadka u soo halgamay. horta waa runtaa weeye, muwaadinad baa tahay reer Somaliland. waxaad tahay dadkii dalkan waxaad ku leedahay maxaan ku dhahay abaal baad ku leedahay. waa dalkaagii, waa kuu qiraynaa inaad tahay qof muwaadinada, waana inaad sharaf iyo karaamo ku joogto. wixii dhacay inkastoonan war u haynina dee qof kasta oo muwaadina iyo midaan ahaynba horta mas-uuliyadda waxaa leh dowladda Somaliland. inay dowladda Somaliland ka howlgasho oo haddii cid dhab ku jirto adiguna waxaa tiri waan qarinayay. maaha dee inaad qarisa maaha, cid dhib kugu haysa inaad qarisa maaha, laakiin waa inaad macnihii waxaad kalood ku darta. waxaad tiri ninkayga madaxdu la hadlay, madaxda reer Somaliland. madax inaad la hadasho dee maaha, waa inaad dacwo xaraysaa oo inaad booliiska la hadashaa oo booliiska warkaaga gaadhsiisaa. kabacdi baad ka hadli kartaa haddii wax lagaaga qaban kari waayo. laakiin qudhaadu waxaad khalad ku tahay inaad tidhaahdo macnii waan qarinayay. may hayn inaad qarsato. hadday dhibaato lagugu hayo inaad qarsato may hayn. dee mana aha waxa weeyaan waa arrin booliisa inaad booliiska la xidhiidhay ahayd. qof muwaadinada baad tahay, qof sharaf iyo karaamo dalka iyaga kule baad tahay. dalkaagii weeye inaad maxaan ku idhaahdayey si sharaf leh ugu noolaato ayay ahayd. waxaanu kuu qirsanay inaad tahay muwaadinad tacab gashatay Somaliland. laakiin de bili aadan xadgudba lama waayo. haddii lagugu xadgudbay waxay ahayd inaad booliiska toos ula xidhiidho, arrintaadana gaadhsiiso. waxaan arkayaa arrintii dad kale oo wadwado oo doonaya inay si khaldan uga faa'iidaystaan. meesha cadaaladi ma taalo, meesha kani ma taalo. waxay cayayaankii Somaliland daba socon jiray. haddii aanay Somaliland cadaaladi oolin, halkay cadaaladi taallaa? shanta Soomaaliyeed meesha kale cadaaladu taallaa waa halkii aan Somaliland ahayn. Somaliland cadaalad baa taala, laakiin bini aadanku waa isku dhaca. waa lagugu gafi karaa. qof baa tahay, ragga madaxweynayaasha dalka ka ah baa lagu gafaa. marka waa lagugu gafi karaa, laakiin xaq wuxun baad u leedahay inaad dacwoto. xaq waxaad u leedahay inaad dadka dhibta kugu haya haddii aad garanayso in aad dacweyso ayay ahayd, may hayn inaad qariso sidaad adigu sheegtay. dee haddaad qariso wax la qariyo dee cidna waxba kama qaban karto. marka haddii aanay arrintaadu sax tahay walaalay, waxay ahayd inaad booliiska la xidhiidho. ninkaygaa la hadlay macni siyaasiin, dee arrintu siyaasad maahee. macni madaxduna dee xaquma laha, macni nin de madaxdu xaquma laha inay maxaan ku idhaahdayey ay arrimahaasoo kale dee booliiskay ahayd inaad u gudbiso. suurtogal maaha inaad nin wasiire iyo nin wax noocaas aad maxaan ku dhahay la xidhiidho. waxay ahayd inaad dowladda maxaan ku dhahay booliiska u gudbiso, dacwadaada gudbisato. marka haddii wax lagaaga qaban waayo markaasay ahayd inaad ka hadasho. khayr iyo barakaynu isku ognahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.